xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afraale oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursi doorasho ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inaysan si cadaalad ah u maamulin deeq gaaraysay 42 milyan oo euro oo midowga Yurub ay ugu tala galeen in dib loogu dhiso qaar kamid ah wadooyinka dalka Soomaaliya. xildhibaanku waxa uu sheegay 42 milyan ee wadooyinka lagu dhisayo in gobolada aan si cadaalad ah loogu qaybin oo qaar kamid ah gobolada dalka oo kaliya laga hirgelinayo. runtii waxa aad wax loola yaabo ah dawladda dhexe oo ahayd in ay u xaqsoorto gobolada mise maamul goboleedyada deeq dhan 42 milyan oo euro oo European Union ay bixiyeen in aan marna la soo xusin jidadkii ugu xumaa mase ugu waxtar badnaa ee ka imaanaya koonfurta khaasatan South West aan waxba laga soo xusin. arrinta ayada waxaan u arkaa cadaalad xumo taasoo hore u jirtay oo xukuumaddan maanta jirto horeyba ay ugu dhaqmi jirtay tii haddana ay samaysay. waxaa loo baahnaa mase nidaamku ahaa in waxa dalka yimaado khayraadka ka soo baxay kan deeqda yimaado in si siman loo qaybsado dawladda loogu qaybiyo si siman haddayna markaa jirin waxyaalo daruuri ah oo sida duufaanada abaaraha oo wax gaar ah oo meel takhasus aan ku jirin wixii deeq ah oo dib u dhis ah waa in loo qaybiyaa dalka asagoo dhan si siman loogu qaybiyaa saasaa ballantun ahayd sharcigan u yahay laakiin waxa daraad meeshan lagu qaybshay waxaan u arkaa aniga arrin joorfal ah mase loogu tagrifalay deeqdii ummadda loo soo dhiibay si khaas ah meelo gooni ah loo siiyey arrintaasna ay xukuumadda sabab u tahay. marka waxaan codsanayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay dib iskugu noqdaan oo qaybta ayada ay saxaan. xamar ka bilow ilaa afgooy keli haddaad tagto magaalada afgooy maanta laamigaas ma laga degi karo magaalada gudaheeda waxda aragta biyaha dhex jiifa wasaqa dhex yaalla. xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afraale mar uu ka hadlayay dhismaha wadooyinka Muqdisho ilaa iyo Afgooye Muqdisho ilaa iyo Balcad oo ay ballan qaaday dowladda Qatar waxa uu ka muujiyay shaki suuragalka arrintaas isagoo sheegay in 2 sano ay ku sii socoto xilligii dhismahaasi la ballan qaaday ilaa iyo iminkana wax ififaalaha aysan u muuqan. wax ay dhisaysa ma jiraan wax 2 sano waa dhamaatay waa lisaasa lagu wax lisay male laakiin in hadda tan mashaariicdan la bixinayo EU ay bixinayso oo European Union ay bixinayaan in qaybtooda laga siiyo la yiraaho bal akhurta hata muxuu ahaa daafeed iyo xamar dhexdooda waxa lagu sameeyay hata waxba ahayd. ma ogaan kartaa ama ma isweydiisay sababta ay ku waayeen deegaanadaasi? taa waxaa la weydiinaya dadka gacanta ku hayo annaga ayaga u dhiibnay talada ayaga niri waxa ummadda u garsoora ayaga garsoori waay waxaan ka hadlayno waxa xaq darrada ay sameeyeen waay. dadka deegaanada wadooyinka u baahan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo kale aaway madaxdoodii maxay ahayd inay ka hadlaan arrinta? madaxdooda ana kamid ah xildhibaankay soo doorteen baan ahay wixii dhibaatadooda ana uga hadlay dowladda ana ugu jiro laakiin aadaan qayb ma kala yihiin maamulada xilligaas jiray sida Shariif Xasan oo kale oo xilligaas looga baahnaa in arrintan uu process gareeyo. wallahi aniga Shariifka ma ana eedeynaa marka sababtu waxa way asaga waa dowlad goboleed meesh wax laga maamulayo waa dowladda dhexe waay cidda aan annaga fiqada siinay aan niri u xaqsoor gobolada maamul goboleed u xaqsoornay waa dowladda dhexe waay waa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waay. midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya waxay kala saxiixdeen qorshe dib loogu dayactirayo qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee gobolada dalka Soomaaliya waxaana ku bixi doonta 42 milyan. saxiixa qorshahaasi lagu dhisayo wadooyinka waxaa goobjoog ka ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar. Cabdilcasiis Somali Cable magaalada Muqdisho.